bulshada reer Jubaland halka isugu timid rag iyo dumar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام جديد. وحنا كما العلنا يا سولوينتا قيمها بدن يا رسميسين. وحنا كما العلنا يا وقت قدر تاجنيدين. وحنا كما العلنا يا هنا هبين يمارين تاجنتهين. هنا درينجين موجسان إسلام مرحان تانا. ka qayb qaadataan isbeddelka la doonayo inuu Jubaland ka dhaco. Marar badan ayaynu halkan ku wada hadalnay, laakiin waxaan filayaa maalin walba in loo sii dhowaanayo guusha, maalin walba in isbeddelku guulaysanayo, maalin walba inay qormayso taariikh hor leh, maalin walba in ay muuqato qorshaha fashilan fulinimadu ka muuqato dadka tartanka ka baqaya. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo isbeddel doonka Jubaland inaanu marna ka leexanaynin dariiqa, inaanu marna lagu hakin karin xaalado iyo mushkulado iyo waxyaabo aan mangal ahayn. dhammaanteen reer Jubaland meel kastoo ay joogaan waxaan isaga tacsiyeynaynaa falkii run ahaantii aadka u dhibaatada ugu badan geystay ka dhacay hotel Madiina ee Giscascasi 12 bisha July aynu ku weynay saaxiibo ehel qaraabo iyo dad badan oo waxgal ah. waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa cid kasta oo wax gaareen. waxaan Ilaahay ka baryaynaa inta dhaawaca inuu caafimaad degdeg Ilaahay siiyo, haddii meel kale loo qaaday iyo haddii ay kismaayo weli yaalaanba. waxaanu mar walba u taagannahay inaan ka qayb qaadano bulshadu wax kastoo ay la kulanto. waxaanan insha Allah rajaynaynaa in dadkaasi iyagoo caafimaad qaba inoo soo noqon doonaan. waanu ducaynaynaa dhammaantood intii dhimatayna Ilaahay naxariistii ha siiyo, waqtigoodii baa galay. waxaan runtii dhiirigelinaynaa go'aanka qaramada midoobay ay soo saartay gaar ahaan Security Council-ka oo uu go'aamiyey in la sameeyo baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dhacdadaas, isla mar ahaantaana si dhaba loo ogaado wixii dhacay iyo ciddii ka dambaysay. waa dhiirigelinaynaa, waana taageeraynaa, waanan ka qayb qaadanaynaa in baaritaankaasi uu si rasmi ah u dhaco. mana la aqbali karo in maalin walba aan qof iyo dad iyo koox iyo bulsho fara badan oo waxgala meel cidlaa kaga tagno iyadoo aan loo haynin ama loo ciqaabin ciddii balkaa geysay. intaa marka laga tago reer Jubaland, dalka Soomaaliya doorasha ka dhacda meel walba, hadday tahay federaal iyo hadday tahay dowlad goboleed. Jubaland ay kaba duwanaanayso dowlad goboleedyada kale iyo federaalka, dowladda federaalka doorashooyinkooda. waxaa la rabaa doorashada Jubaland ka dhacaysa inay tahay doorasho loo siman yahay, doorasho lagu wada kalsoon yahay, doorasho dadku ka wada qayb qaato, doorasho qof waliba uu ku qanci karo, isla mar ahaantaana natiijada soo baxdaa ay tahay natiijo la wada aqbalo. waxaa lagaba maarmaana in qof waliba ogaado inaanay jirin Soomaaliya iyo adduunka guud ahaan meelnaba in qof sida uu rabo uu yeeli karo ama kooxi sida ay rabto ay yeeli karto. marna taa ma suurageli doonto. waxaan rabaa
inaan shacabka la niyad jabinin. waxaan rabnaa in isbeddel doonka aan loo sheegin sheekooyin khariban. waxaan rabaa inaan laydin cagajuglaynin, laydin caburinin, isla mar ahaantaana riwaayado aan meel fog gaadhsiisnayn laydin dhigo. doorashada Jubaland ma noqon doonto doorasho harqaan la tegay oo shaadh hal dhinac lagu cabbiray oo ninka qura u leegyahay. doorashada Jubaland waxaa la rabaa inay noqoto shaadh qof walba leeg, qof kasta ka ugu yar iyo ka ugu weyn. waxaa la rabaa qof waliba inuu ku kalsoonaado nasiibkiisa iyo rabitaanka bulshada iyo wixii Ilaahay u qoray. marar horena waa sheegay qofkii aan intaa ku kalsoonayn boob iyo dhac iyo afduub iyo cagajuglayn iyo mid la dilo iyo mid la xidho midna kuma helayo. isbeddel doonka Jubaland ma aqbali doono guddi doorasho oo hal qof oo u shaqaynaya, hal murashax u shaqaynaya. ma aqbali doono odayaashii dhaqanka oo intii macnaha lahayd ama in badan oo aan raalli ka ahayn waxa socda inta la iska duuro kuwa kale lagu bedelo oo la iska soo qorto intii la rabo hal qof uu siduu raba ka yeelo. ma la aqbali doono beelaha Soomaaliyeed. waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah. wax dhaqanku siduu isu bedelo waa la yaqaanaa, laakiin lama aqbalayo guddi doorasho hal murashax u shaqaynaya, lama aqbalayo odayaal hal nin u shaqaynaya, lama aqbalayo baarlamaan uu hal qof soo xushay, lama aqbalayo habraac hal qof u adeegaya. haddii qof intaa samaysan karo oo sidaa ugu meel marayso dhibaataba ma jirteen, qof waliba meeshuu joogu shaarkaa iska cabbiran lahaa. dalkan waa la wada leeyahay, dadkaana wada leh, go'aanka ayagaa ka gaaraya, ayagaana go'aaminaya ka xildhibaan u noqonaya, ayagaa go'aaminaya ka madaxweyne u noqonaya. salaadiintoodana way yaqaanaan. intaasaa la rabaa in lagu wada kalsoonaado. intaa marka laga tago waxaan rabnaa dhammaanteen inaan indhaha ku hayno waxa socda. nalama qasbi karo, nalama caburin karo. kii la dilo waa aasanaynaa, kii la xidho waa soo daysanaynaa, kii maxaanku idhaa loo cagajugleeyo waxa waaye qaabka kale aynu u badbaadin karnaan u badbaadinaynaa. laakiin waxaan rabaa inaan dariiqa marna laynaga leexin doonin. mar kalaan ku celinayaa doorashada Jubaland waxaan rabnaa inay noqoto xor iyo xalaal. waxaan rabnaa meesha lagu qabanayo inay tahay meel cid waliba ku kalsoon tahay. annaga ciidamada Jubaland waa ku kalsoonnahay, sharaf iyo karaamaan u haynaa. laakiin waxaa la rabaa in aanay hal murashax ka amar qaadanin ee ay noqdaan ciidamo u adeegaya Jubaland oo ah inay doorashada amnigeeda sugaan. waxaan rabaa dhammaantiin inaad wada ogaataan baarlamaanka Jubaland xulitaankiisa odayaasha iskale. haddaan murashaxiinta nahay waa oggolahay in odayaasha dhaqanku soo xulaan xildhibaanada. waa oggolahay in xildhibaanadu wax doortaan, laakiin qof inuu wax soo qorto kulligeen ma yeelina. sidaas oo maaha. waxaan soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka murashaxiinta isbeddel doonka meel kastoo ay joogaan. haddii doorashadu sida ay ku socoto, haddii sida la rabo ee shaarka halkan in lagu cabbiray lagu sii jiro, inay doorashooyin kala duwan ka dhici doonaan Kismaayo haddii aan la yidhaah. waxaa dhismi doona baarlamaanno kala duwan,
waxaa ka soo bixi doona madaxweynayaal kala duwan waxaa ka soo bixi doona bulsho maamullo kala duwan leh waxaan ka digaynaa in dariiqaas loo horseedo Jubaland waxaanan uga digaynaa maamulka xilku ka dhammaaday ee hadda talada haya inuu kala qaybiyo bulshada lagama aqbalayo baarlamaan isagu uu leeyahay oo 2 bilood ka hor la sii qoray waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo baarlamaanka Jubaland ee aad sugaysaan 2 bilood ka hor in la sii qoray odayaashu waxba ma soo xuli doonaan waxaa la marinayaa process laakiin waraaqahaasi waa qoran yihiin baarlamaankuna waa qoran yahay 75 xildhibaan liiskooda waa la haystaa in la dhaariyo keliya rabaan waddankan system baa ka jira dowlad goboleed la yidhaahdo Jubaland waxaa ka jira dowlad federaala waxaa ka jirta beel caalam waxaa ka jirta ciidamada amisom waxaa jirta shuruuc caalamka ku kala dambeeyo waxaa jirta nidaamyo la raaco intaas in loo hoggaansamo keliya rabnaa annaga waxaan mar kale ka digaynaa oo ku baaqaynaa in banooniga dhulka la dhigo talada la wada lahaado wax la wada qaybsado wax la wada wadaago dhala halkaa la dhigo sida adduunka oo dhan ka dhacda dadka dhalada ku codaynaya la yaqaan siday ku yimaadeen dadka soo xulaya la yaqaan siday ku yimaadeen amniga la sugaya la yaqaan sida loo sugayo hawshaas oo dhan ay sida u cadaato qofkii ka soo baxana lagu qoro waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo reer Jubaland meel kastoo aad joogtaan waxaan idin xaqiijinayaa in aanay suuro gelaynin shaarka la isku cabiray dowlad Jubaland la yidhaahdana aan lagu dooranaynin qorshaha hadda miiska saaran ee la soo saaray ee aad aragteen waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in hawshaasi haddaannu nahay murashaxiinta aannu hal meel uga soo wada jeedno annagoo idinka wakiila isbeddel doonkoo dhan murashax kasta oo isbeddel doona ama kismaayo ha joogo ama ha ka maqnaado waxaan ugu baaqaynaa in ay midoobaan isla mar ahaantaana u soo istaagaan badbaadinta Jubaland shacabka qaybihiisa kala duwan waxaan u soo jeedinaynaa inay hawshaa ka qayb qaataan iyagoo ilaalinaya amniga degganaanta iyo inay u hoggaansamaan hay-adaha amniga Jubaland waxaan ugu baaqaynaa in ay shacabkooda iyo dadkooda si cadaalada oo wanaaga ugu shaqeeyaan gudiga doorashada waxaan u soo jeedinaynaa in ay dib ugu laabtaan dariiqii looga baahnaa isla mar ahaantaana ay ka waantoomaan sida hadda wax u socdaan ma aha si shaqaynaysa ma aha si la aqbali karo sidaasi darteed waxaan u soo jeedinaynaa gudiga doorashada markii hore siday ku yimaadeen waa ogeyn indhaha laga qabsaday haddana waxay lumiyeen kalsoonidii shacabka iyo murashaxiintu ay ku qabeen sidaasi darteed waxaan rabnaa in dib la isugu laabto oo dariiqii Jubaland lagu badbaadin lahaa doorashada kaga dhici lahayd aynu kulligeen wada abaarno waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan hawshaa wada taagannahay meel la kala jiraba iyo meel la joogaba taa laga wada shaqayn doono waxaan rabaa inaan mar kale maxaan ku idhahdaa idinku baaqo dadkiinna shacbiga qaybaha kala duwana inaad isu taagtaan badbaadinta Jubaland haddii alla yidhaahdo maalmaha soo socda kaambeynku waa ka duwanaanayaa kaambeynadii hore kaambeynadu waa midaysnaanayaan murashaxiinta oo dhan iyo shacabka oo dhan iyo dhammaanteen waa ka wada qayb qaadanaynaa waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaynu hal meel wada abaari doono taasoo ah inaan Jubaland
caalamka waxaan ugu baaqaynaa hadday tahay qaramada midoobay waa ka xumahay ninkii wakiilka qaramada midoobay ee maalintii dhaweyd halka yimid James Swan in laga been sheegay hadalkiisii laga been sheegay si qalad loo fasiray taasoo looga jeeday in shacabka reer Jubaland la khaldo oo dhagahooda wax kale la maqashiyo waxaan rabaa arrintaasi sida loo sheegay inaynan ahayn isaguna uu qoraal ka sameeyey isla mar ahaantaana warkaasi uu yaalla meel fog aan cidnana laga been sheegi karin waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka in ay qaybta ay ku leedahay ka qaadato hawsha waxaan ugu baaqayaa inay fuliyaan artikalada Security Council-ka iyo qaramada midoobay ay ka soo saareen doorashooyinka meesha doorashada lagu qabanayo sida baarlamaanka loo soo xulayo iyo sida odayaashu u shaqaynayaan intaasoo dhan in si cad ay u muuqdaan hadalladeennu waa inoo dambayn doonaan laakiin ballanteennu waa in aynu muujinno oo meel marinno doorasho xor iyo xalaal ah oo si amniga ku dhacda Jubaland ka dhacda habraaca iyo schedule-ka doorasho ee maanta la yidhi waa la soo saaray annaga xagganaga waxba kama jiraan waa null and void ma aqbalayno ma aqoonsanin mana aqbali doono waxaan rabaa inaan idiin sheego hawshaasi inaynan khalkhal gelinin inaydaan waqti gelinin isla mar ahaantaana haddii qof uu siduu rabo iska samaysanayo Soomaaliya iyo Afrika iyo adduunka horaan u sheegay inuu qof walba wuxuu rabo samaysan lahaa anigu marna madaxweyne noqon lahaa